daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan waxaan ku suganahay hoteelka Crown ee magaalada Hargeysa hoteelkaas waxaa kula kulmay nin inta badan dadka YouTube-ku ay kulay garan doonaan dabcasar adiga magacaaga saddexan iyo hawlahaas faahfaahin doona marka hore magacaaga saddexan noo sheeg Abdurrahman Abdullahi Haji naynaas dabcasar Badriyo ويا باد أمهات بدر يومين سفي عن وكاوس لقرنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة سفي عن قول إذن سي بدر إذن كو مركب بدر وما شاء الله ما بدن بدر وتجدون هالكاس مركب هرد تبع سر محيه مقعس ولا لو حاول ودلال وقرح و عربو مثلا قد هو دين عصبوها وجه دي كود مايو طبعا ريبر برونا حاجه دبع عصر دي موسى يا غرانيا دي لا كود ماي موسى بخي دي ريبر بلا غرانيا دي لا كود ماي marka dab casar way hadii la kود dab casar hadii la kود naynastiisi in casbu aha oo cad oo hadii la kود bajilcsan oo bayaxo hadii la kود maayo taas loogu magac daray way faafaahita kale waa u gali doonaa maanta waxa timid magaalada Hargeysa nooga waran imaatikaaga xaqiiqdii lama soo koobi karo shucuurtayda farxadda reereynta wanaaga aan dareemayo ehelnimada sokeeynimada Soomaalinimada wax aan filanaynin wixii ay soo imaalida koonfurtu gaar ahaan ay bumbuuno lahaayeen free dab casar baan dhahaynaa hadii la kudma ama god dheer baa lagu ridayaa ama maxaa la jilcu wala mandheera maxaa la halka jeel dheer baa lagu ridayaa war waxaas aniga yaa baro isla laba guuta taagan airport oo ku qaban doonta mise waxaa la idhiga fiyorayaal iyo ubax iyo kaarbad sidii boqorada la isoo dhaw sheekh yani xaqiiqdi yani abitaan cunitaan hoteelada la deji kala iska arag marka barwaaq been ba qurbaad taala been dadka qaar waxay lahaayeen munaasabada madaxweynaha xil wareejinta ayuu u socday bal hata imaatikaagu waxa uu la xiriiray noo sheeg madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa jecelaydna inay yimaadaan nacam anigu waan goostay inaan imaado soona gaaro kana qayb qaato hadii la kود maayo ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inuu xilka la garab galo ilaahayna u sakhiro madax iyo wasiiro ilaahay ka baqaya oo geesiyaala oo daacada oo la garab gala hawshatan hadii la kود bal ilaahay subhanahu wa ta'ala an ka bariya طبعا يعني de musana waana bumbuuniyay hadii la kود maayo intii aan la dooran ka hor wali de hadda iga taagantahay muuse ii geeyay hadii la kود maayo waa la joogo waa lagu geynayaa bal hadii la kود maayo دي فرماجة إيجاي هيد والوجيه سوماين والوجيه نيابلي ونرجعنا إلى كلهم مركا الله لا قرب قلم حوينا وأنا أنمد وأنا أركينا إن شاء الله إلهنا قرنك يدلك يدتك الله برواقي أن إنتانو هاي يوتيوب يدا إيوه الرمها ساعة بعد كتاي سبت قلا وحبة ودكتا قلا وحيران شيخ قلا كلاسيك كلا يكون طليران سيتو كيرك هالكيدي بل هي هورها كور حقيقي إلهي وحن كبرينا إنه هرت قول كنا قول سديد أو كرديجو خلطات بدن وانا قدعان أو أنا وما كفتر عن كرديجان أما ينا كرديجان خلطات بدن وانا قدعان لكن واحد شرو حياة بدن وحقيقة أو دتكو أيوب بايين أو حق اجتماعي أو دليرو أيوب جارهان دليرو أي حسيان أو دينتنا أد حوج أسرتي كان شكاي سي أن يعني حقيقي يعني عيبنا أنا هين لكن حوجا وحلا يقول لي أنا الفاض أدق أما أن أسترنين أو أن أذكسده أو لقى في عيني وأنا قاطع تلوين كاس مركب ولا إلهي وحنا كبرنا ذلك يعني إنه يلوها كشيء بل يردنا وحلنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج بل يرى يقفك أو إنه جرسه وجرسه مركب جوركو يعني شرفتيسا كرامتيسا زينة يعترض على قاضو يعني أي ريسكيو إيست أفريقيا عند كفافية oo aad u faafiya ilaa lagana baahan yahay qaranka Soomaaliland inay dhalinyarada wacyi gelin xoog leh ay u sameeyaan oo hadii ay ku idmaayo marka anigu salisaytuun baan ka shaqeeyay laakiin dhalinyaradii halkaas wacyi gelin guurku inuu xalaal yahay fiican yahay yaani opposite-ka wax aan hadii ay ku idmaayo sida hadii ay ku idmaayo cudurrada khatarta oo STDs sexual transmitted disease ka loo yaqaano sida HIV herpes gonorrhea chlamydia waxa soo idil hadii ay ku idmaayo فربنا هدي لا كود مركب ولكن يعني أدب ما صنتهاي يعني سؤال قيمة بدنا هدي لا كود إن أرمها كذا شدت بدنا حوار كان أنا صحيحين وحنا الله يراها شيخنا واضحين ديتو إن قاب عين كاس الله وجهله وحدري لم يذهب صحيح يعني سؤال سعد ودي سوال الله
waaba aniga hadda kuu sheegayba yani diintu sida ay uga sheekaysay fieldigan ama maadadatan haddii ilahay ku idmaayo guurkii iyo xuquuqdiisii iyo raaxadii ama haddii ilahay ku idmaayo sida loo raaxaysanayo iyo usluubteedii iyo yani ninka iyo haweenaydu xaqa ay isku leeyihiin iyo haddii ilahay ku idmaayo yani gabdhaha xurulcaynta iyo jirkooda ilaahay tilmaamaya indhahooda jirkooda xubnahooda yani xataa gabdha aan lasoo taat yani hadda ma doonayna inaynu ku dheerano hawshaas laakiin yani qur'aanku ma helaysid book romancy ama jacayl ama ka sheekaynaya oo hawlaha yani qur'aanka suu uga sheekeeyey ama u faahfaahiyey ma jirto haddii ilahay ku idmaayo kutubta fiqiga haddaad fiirsa haddii ilahay ku idmaayo yani waxyaalaha ka dhalanaya ninka iyo haweenaydu marka ay wada kulmaan qubayska ka dhalanaya waxyaala badan baa ka dhalanaya oo yani marka yani culummadu sibay u tilmaami jireen yani af carabiya tacbiirin jireen xashafa iyo wax lamid haddii ilahay ku idmaayo marka waa laga fiican yahay dawaaniga ku iri dee hawlahaasna iminka waaba ka gaabsaday oo aniga laftayga hadda awowo inaan noqdaan ku dhowaay laakiin in allah laa yastaxyi min alxaq waxaa loo baahan yahay dhalinyarada in la wacyigeliyo oo laakiin wixii xunna laga wacyigeliyo hadda maalan baashaal baa lagu leeyahay baashaalki yani zinadii waxay noqotay piece of cake maalan yani gabar iyo wiil baa iska xaysanaya hotel bay isla tegayaan ama meel bay isla tegayaan ama gacanta isqabsanayaan ama aroos baadhi baa jira ama baashaal haddii ilahay baa lagu leeyahay marka waana wax zina ah ilahina wuxuu leeyahay walaa taqrabu الزنا marka xaqiiqdii dhalinyaradu waxyaalaha factska oo wadaado badan ay ka sheekeen ama ay ka gaabsadeen inaan soo bandhigay laakiin de inaan ku talax tago ma ahayn oo de haddii la guud hadda kadib ma joojin yani waxyaalo badan oo aan ka gaabsaday way jirayaan sida maalan ba criticizing condemning iyo haddii la guud maayo qof cambaarayntan iska socota iyo cayda iyo qabiil in laga hadla iyo shakhsi in loo gafa iyo waxyaalahaas waxyaala yani adduunya aakhiraba aan sharaf ayna dilaa ku waxaana waxyaala duubmaya oo youtube galaya oo ilaa qiyaami saaca kugu markhaati kacaya marka waxa way qofku muxuu ka faa'iideeyaa wax yaroo kuu qosla waxba kuu tari mayso adigoo walaalaha ama qof ama qoys ama qaran wax ku xadgudbaa dilaa ku marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala wax productive ah inaan soo bandhigi doono oo ummadda anfacaya si cilmiyanna ah waxaan ka baaraandegay oo aan u sameeyey lesson planning awal anigoo xiiqayo ordahaya ayaan soo geli jiray waana sii dayn jiray sax editing baa jira sooma maxaad samaystaan idinku maxaad samayn jirteen yani ya hadda youtube-ka ma sii daystaan mise waad anugu daarigoo waxaygaas warsaasay ku geli jirtay marka taas waxay keentay waxyaalo badan oo bilaa break inaad noqday haddii laha laakiin iminka bacdi waxaan rajaynaya insha allahu tacala wax cilmiyan ah oo qurux badan oo sharaf leh oo udgoon oo oo aad u fiican insha allahu tacaala haddiiba ay dhacdo inaan barnaamijyo soo gudbiyo barnaamijyo xagga nabadgelyada xagga guurka xagga walaalnimada xagga midnimada xagga iscafinta dib u heshiisiinta إلا يعني حتى مثلا يعني حالي قرح بدنا يوم مدن مسبح إلهي قرب قال وكشكي وحكم ذا كو حيالا وقرر مسق ماسق إنه لد الرئيو قبل إنه دقي النبضات أو دمان مدي سومالان سكينيو قبيلة دي كلا دوانا تدكي وحكلا ترسانة يعني باور شيرين حكم كلا قيب صدر لو ذا اللي هي لو ذا اللي هي أو تدكي أي مدوبان أولي ديرك عقدنا أي بحثه هسد الشيخ أرمها ونقلتون نفتي بربرابي وانا برعوان هاي دي قرن كيا وحكا دستو si kooban qoyskaaga baa u timid baa laygu yidhi arrinkaas ma jira ها يعني عروتي ذلك كان دكان تهي أدي لا يكون ما شاء الله وقرن كودي ودل كودي وأبح سومالان دا يكون فانتو قبل يدون الجامعات بيني قتا ما شاء الله إنا كون السنة كل هالكان نصور وبرتا مركب ودل كودي أنا وأنا أمي دتك ما شاء الله أيه كلية ما أنا دتك ودم بدتك يجي أو ديجي أو دعان كيجي أو إهل كي أو ما شاء الله يعني ما شاء الله الله يشرفه لما أنت لقينا تشوكتال إن شاء الله وحى يقرش السن لباب بلاد بن سوقستي فبراير عشان تيدا إن المرايكان كنا أفرت هذا لكن هرجيسة إن كبحه كودا برجينا إن كبحه إن باقي قرن فبراير يوكرين بن كنا قنيا مركز إن شاء الله وأن أفرت كبحه إن شاء الله وهدي أن الله si kooban dad waxay yiraahdaan reerihii sheekh Madeyniino saliidii waa ka dhinac ka wada iyo arrimaha soo dhan haye maanta ay saamaxna miya taaganta walaal waxa weeye bani aadam oo dhan way gafayaan
qofka gafana waxa u fiican sida nabigu yiri kuwa ka soo noqda khaladkooda bug waxa jira hadda aan watay oo ah how to influence people how to influence and influence people waa saaxiiba kasbo si saaxiibada loo kasbado waxa kamid ah qodobadiisa do not criticize do not condemn ha ambaarayn ha yani waxa ka sheegin waxa faagfaagin waxa kamid ah admit your mistakes khalad markaad gasho ha isa soo liqdaarine waan gafayday hadii la kiid maayo daaruna de waxaan leeyahay dhammaan Soomaali weyn gaar ahaan qaranka Soomaaliland warda wixii khalad iga dhacay yaa miskiinka alle meel dheer ma jire warda raali hada dadka si ku xantaa waxay dhahaan hada sheekhu wuxuu ka dhiganayuu caanimo iyo arrimahaas YouTube-ke bal hadda arinta ka war xaqiiqdii iguma jirin iscaan bixi waxyaalaha soo caan bixi waxa kamid ah YouTube anigu dadka ma cishado marka dadku ayaa kala qaata way hadal ma dhahayo laakiin ayaa qaata marka ayagu meelihii kala badnaa ay ku tuurayeen baa keentay laakiin caanimada haday noqoto rasuulkeena kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna allaha yuhib al-abd at-taqi al-khafi ilaahay wuxuu jecel yahay adoonka allah ka cabsada oo qarsoon oo aan ka ahayn laakiin haddii aad ilaahay agtiisa caan ka tahay dadkuna aysan ku aqoon kee fiican inaad ilaahay agtiisa caan ka tahay oo dadku aysan ku aqoon iyo in dadka agtooda aad caan ka tahay oo ilaahay uusan ku aqoon kee fiican wax ka rabbi baa wanaagsan marka anigu waxaan doortay ilaahay agtiisa inaan caan ka noqdo dadkana haddii ay jeclaadaan oo dee caan aan noqdane dee waa wax ilaahay ku siiyay ilaahay hadduu inta la macaldoon kale dadku ay jecel yihiin maasha allah dee qof hadduu ilaahay jeclaado jibriil buu u dhawaaqaa jibriilna mala ula calaa buu u dhawaaqaa fa yuudacu lahu alqabuul fi lard jacaylkii baa dhulka loo gelinaya marka caannimadaas iyo jacaylkaas waxaan ku heli karnaa daacada ilaahay sharafta wanaagga alla ka cabsiga ayaynu ku heli karnaa meesha aan ka raadinayno xumaan iyo cay iyo munaafaqad iyo isku dir iyo xan iyo qoys ama qaran ama dad loo gafo haddii ilaahay ku idmaayo waxaa laga heli karaa dhinaci fiicnaa baa laga heli karaa walaalle ugu dambayntii aad iyo aad ayaad marka hore u mahadsan tahay telefishinka Aerial iyo kelmadda u dambaysa oranaysa waxaan leeyahay law anfaqta ma fi al-ardi jamiican ma allafta bayna qulubihim ilaahay baa yiri haddaad if you spend haddaad bixisid waxa adduunka yaalla oo dhan ma midayn kartid dahab iyo luul iyo wax kasta gold silver petrol waxa walba si jagooyin xataa qayb haddii ilaahay ku idmaayo يعني هذا قارب كره جري مسبحين ومارتي جوين وقيبيو isku jeclaysiyo dadka wax lama taqsiin karo laakiin waxa la taqsiin karaa maxay dabiicad wanaagsan iyo run iyo cadaalad iyo dadka la taqsiin karaa marka waxa ilaahay waxaan ka baryaa shanta Soomaaliya Allah qulubtooda isu keeno waa dad eela wada dhashay luqad diin qiblo rasuul wax walba ka dhaxeeya waxay wadaagaan cid wadaagta male ilaahay waxaan ka baryaynaa marka inuu qulubtooda isu keeno Soomaali weynna Allah mideeyo cadawgoodana Allah ka qabto fiican laakiin marka muuqaalka aad ku jirtaan gacan baatay imika wada dheer lagtay ka warranta sheekada aad iyo aad baad u baasan tahay mala kaba dheer baa qabaa u malaynayaa xogaa bariyaha rag iyo dumar ba waxba la ismariyaa baa la yiriyo sunniyo beena iyo hadii la ku idmay kaba dheer iyo wax wada beena dadkii qalab wada beena dadkii ku xiriyo waxba markaad ها ما سلسيتون كاس أمبارس كم برصة وكله أيادنا بوت هذا دلنا ها وادو قبلت تسيتون عادي نقدر قالي عادي نقدر قالي مركز تي في كان عاد بو ما سيهاي يعني وحيالها شرفت قرن كوهاي سد عادي بدو ما سنتهاي من ماذا نبت قليدا هرمركا نقالها تعلينتا توجيهinta dhalinyarada gaar ahaan oo 170 dhalinyaro ah aad iyo aad baad u maasantahay TV-gaagan waxaan rajaynaynaa inuu caalamka dhan gaari doono insha Allah shukran aad iyo aad baa maasantahay